أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. إخواني في الله وحو شركين جرائد دارين هي باقنا بديدو أي جيدين أيان قولها نبضين تأيدبو جيسين تصوماليات يكو آدن دقالة كسعودة كوفر قلبات قبل كباي دقمة الدينسور هير شبيل قبل كهيران دقمة جلالقسي مقالة إيجي waxaan leenahay walaalaha halka ku diriraayo aan u soo jeedinaynaa annagoo ku hadlayna magaca nabadeynta golaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta Soomaaliyeed in ay xabadda joojiyaan ee xabaddu ay ku bedelaan xal wada hadal ay ku bedelaan ileen Soomaali hore waxay u tiri xabadi wiil bay dishaa wiil ma dhasho wiil waa ku dhintaa maayna kuma dhasho walaalaha halka ku diriraayo bisha Ramadaan fadligeeda oo iyadu aan soo marnay maqfiradii biriga daani raxmadii haddana aan ku jirnay cidqu min naarki ee aan u soo jeesanay cibaadadii waxaan halkan u soo fariisanay annagoo sooman in aan ka seexan weynay dhibaatada ka socota degmada Diinsoor gobolka Baay dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaan leeyahay culamaa u diinka iyo waxgaradka iyo salaadiinta iyo ogaasyada dhammaan bahweynta ku abtirsata Koonfur Galbeed in loo istaago sidii lagu joojin lahaa dagaalkaasi ka aloosan magaaladii nabadeed ee ahayd Diinsoor magaalo diimeedkii ugu caansanayd Soomaaliya ah in la joojiyo xabadaasi ayaan soo jeedinaynaa waxgaradka iyo dawlad goboleedka Hirshabelle ugu horeeyaan ee waxgaradka iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed dhaqanka ay ugu horeeyaan culamaa diinta iyo culamaa u diinka ay ugu horeeyaan waxgaradka ay ugu horeeyaan dhalinyarada iyo haweenka waxaan leenahay walaalayaal hala joojiyo xabada wararka hadda inaga soo gaaray waxa inana soo gaarsiiyay inay xabad joojin lagu dhawaaqay xabad joojintaas in la adkeeyo ee walaalahaasi ay wada hadlaan la wada hadal siiyo si aysan nooga dhiman wiil dambe loo barakicin hooyii aabba aysan ku dhibtoon waxaan leenahay walaalayaal raalli ahaada nabigeena ku saliya hala joojiyo xabada ayaan leenahay sida waxaan u soo jeedinayaa dadweynaha ku nool shacabweynaha Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Galbeed gobolka Baay degmada Diinsoor walaalayaal waxaan leenahay xabada hala joojiyo sidoo kale waxaan baaq nabadeed u soo jeedinaynaa walaalaha ku diriraayo Hirshabelle gobolka Hiiraan degmada Jalalaqsi magaalada Iji fool xumada ka socota ee dhulka guryaha laga gubaayay iyo beeraha geedaha laga jaraayo waa ku soo gubanay sidaad la socotaan muddo 35 sano ee ka badan ayaan dagaal ku soo jirnay faa'iido laga gaarayna ma jirto nin dhul laga zuuliyana ma jiro walaalaha inaysan isweynin ee ay raalli ahaadaan gacmaha isqabsadaan nabadda ayaa reer wada deeqdo nabad ayaa caana maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii caafimaad la doonayo wuxuu ku dhex jiraa nabadda uu ku dhex jiraa haddii deeq la doonayo waxay ku dhex jirtaa nabadda haddii cilmi la doonayo waxay ku dhex jirtaa nabadda sidaas ayay caana mac u tahay marka walaalaha ku diriraya Hiiraan degmada Jalalaqsi magaalada Iji sidoo kale waxaan baaq u soo jeedinayaa madaxda dawlad goboleedka Hirshabelle ogaasyada dhaqanka ugu sareeya ee Hirshabelle nabadoonnada qaaliga ah culamaa u diinka sharafta badan dhalinyarada iyo haweenka Soomaaliyeed in loo istaago sidii xabadaasi lagu joojin lahaa saakay nin dherganaa oo gurigiisa joogay oo dhaxanta jiifo oo maanta baahi la afuri la ayaa jiro dhibkaas annaga isu keen Ilaahay nooma keenin walaalayaal waxaan leenahay alla joojiyo xabada hala joojiyo xabad wiil kuma dhasho wiil waa ku dhintaa walaalaha reer Hirshabelle waxaan ugu baaqayaa inay u istaagaan ay ugu horeeyaan madaxda sidoo kale waxaan baaq u soo jeedinayaa xukuumadda Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweyne Xasan Sheekh wasaaradda arrimaha gudaha amniga qaranka golaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha inay u wada istaagaan dagaaladaasi culus ee ka socda dalka gudihiisa waxaan sidoo kale u soo jeedinayaa walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dibad inay u istaagaan sidii loo joojin lahaa xabadaha meel walba ka socdo meeshii ay u badan tahay iyo meeshii ay u yar tahay xabadi ma yaraato meel kastana waa ka jirtaa ha loo istaaga nabadda ayaan leeyahay waxaan nagoo ku hadlaynaa magaca golaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta Soomaaliyeed mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad u soo jeedinaynaa ummadda Soomaaliyeed ee saa'imiinta ah
inay u wada duceeyaan iyadoo bishii barakaysneed leeliyaalkii barakaysnaa u dambeeyey aan ku jirno 10kii ugu dambeeyey in culayska ilaahay dalka Soomaaliya ka qaado xabadda socota meel walba ka aloosan ilaahay naga istaajiyo aan ilaahay dartiisa u wada istaagno aan u duceyno ummadda culeysyada haysto aan isgarabsiino anna garabsiina kuweyna ducafada ee masaakiinta ee biriga tabaalaysan aan afuri karin oo dhibka culayska haystana aan il raxmale ku fiirino ee aan wada gurmano walaalayaal waa mahadsantihiin salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh